Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, nabad saaxiibayaal, kusoo dhawaada Yesma channel. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar, haddii aad horey noola joogteena like ta naga ilaawina. Insha Allah maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa mowduuca miiska noo saaran ee ku saabsan sababta keenta dhimashada degdega ah ama suuxitaanka. sanad walba waxaynu aragnaa ama maqalnaa qof si kadis oo dhintay ama mid isagoo suuxsan laga qaaday halkii uu ku ciyaarayay ama goobtii uu ka shaqaynayay, qofkaas oo aanan jirin wax xanuun oo horey u hayay. Haddaba waxaa jira 3 waxyaabood oo ka dambeyn kara qofka inuu si kadis u suuxo ama uu dhinto. Sababta koowaad waxa weeye ama ka dambeysa in wax la dhaho simple fainting ama suuxid sahlan. Tani ma aha mid halis badan, ha yeeshee waxay u baahan tahay in la baaro waxa keenay. Calaamadaha lagu garan karo qofka markuu suuxitaanka ama uu suuxo, gaar ahaan suuxitaanka sahlan, waxaa ka mid ah qofka inuu madaxa dawaqo oo uu dareemo dawaqaad dhanka madaxa ah, inuu madaxa saa u wareego, inuu indhaha humaag ku furmo, waxaa loo yaqaano blurred vision, iyo in dhagaha uu ka maqlo ama ka dareemo qaylo. Sidoo kale suuxitaanka noocan ee loo yaqaano simple fainting muddo aan 15 daqiiqo ka badnayn, qofka waxaa macquul ah inuu kasoo kaco suuxitaanka. In qofka meesha kulul ama qubeyska kulul ku xanuunsado, gaar ahaan madax xanuun ku dareemo. Daweynta markaynu ka hadlayno noocan suuxitaanka noocan oo ah suuxitaanka sahlan, kolka la ogaado qofka in xanuunkan suuxitaanka sahlan suuxitaanka haya uu yahay suuxitaanka sahlan, waxaa lagu daweynayaa qofka inuu ka fogaado cabida kafeega badan iyo inuu joogteeyo cabida biyaha. waa talooyin haddii qofka saan camal u xanuunsado uu raaco, kana hortago inay suuxitaankan uu kusoo noqnoqdo, balse daweyn caadi ah oo qofkan kaniini la siinayaa ma jiro. Sababta labaad ee ka dambeyn karta qofka inuu si kadis u dhinto ama si kadis u suuxo waxaa ka mid ah cardiac problem, cilad xagga wadnaha ah. Inta badan ciladaha wadnaha waxaa la ogaadaa kolkii qofka si kadis u dhinto, balse calaamadaha sii sheegaya in xanuunka qofka la suuxay ama uu dhintay wadnaha yahay waxaa ka mid ah in qofku xilliga jimicsiga ama physical exercise waxa loo yaqaano uu ku dhaco miyir doorsamo ama collapse waxa loo yaqaano. Qofka markuu masalan jimicsanayo kale ama exercise sameynayo in uu miyir doorsamo ama uu collapse ku dhaco. Number 2, in isagoo aan horey waxba xanuun isku ogeyn ama aanan wax xanuun dareemin uu suuxo kadibna uu dhinto. Ama in qofkaas waalidkiisa kadisa wadnaha ugu dhinteen isagoo yar. waxaa laga yaabaa qofkaas markuu yaraa in uu wadnaha uga dhintay isagoo yar. Wadna xanuunku waa wax ugu badan ee keena geerida kadiska ah, gaar ahaan xilliga qofku ku jiro jimicsiga, waxaana keenaya in aynu ogeyn awal wadnihiisu weynaaday, iyadoo inta badan ay keento in qofka aabihiis ama hooyadiis xanuunkan uu dhintay ama markaasba xanuunkan la noolyahay genetically. qodobkan waxa weeye haddii waalidka oo kale masalan mid ka mid ah ay qabeen xanuunada wadnaha ah, waxaa dhici kara adigan ogeyn in waalidka aad ka dhaxashay oo xanuunkii wadnaha uu ku hayo, laakiin aadan wax war u hayn. Fiiro gaar ah, qofka markuu saan u miyir doorsamo waxaa la gudboon cidda la joogto in ay u fidiyaan gargaar degdega ah, masalan in ay xabadka gacmaha kaga riixaan, afkana neef ka siiyaan. Number 2, in ay wacaan gawaarida gargaarka degdega ah si loogu gudbiyo isbitaalka ugu dhow loona tacaalo haddii uu nool yahay. Midda saddexaad ee sababi karta qofka inuu si kadis u suuxo ama si kadis u dhinto waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano seizure ama qalalka. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha sababa in qofku si kadis u suuxo. Inta badan ma sababo geeri, laakiin inta badan wuxuu sababaa qalal ama in qofku uu ku dhaco qalal ama suuxitaan muddo dheer. Calaamadaha qalalka waxaa ka mid ah in qofku waxa uu markaasi u jeedo la noqdaan wax uu horey u arkay ama meel ama shay ku
shayguu doono ha noqdee. Kadibna qalalku saas ku bilowdo inuu bilaabo inuu gacmaha gariir sameeyaan markuu qofku xaaladda qalalka ku jiro. In markuu qofka soo tooso diyaan ama wareer fara badan dareemo, madax xanuun iyo dawakhaad dhanka madaxa ah inuu dareemo iyo wareer fara badan. Qalalku wuxuu ka mid yahay xanuunada daawada leh oo lala tacaali karo. Dad badan oo qaba ayaa ku suuxa jidadka, goobaha shaqada, xilliyada jimicsiga ama cayaaraha lagu jiro. Waana wax ugu badan ee gargaarka degdeg ah loo sababo, laakiin badanaa ma keento dhimasho degdeg ah. Gunaanad haddaba, qof kasta oo dareema wadne xanuun ama waalidkiis mid kamid u dhintay xanuunada wadnaha, ama kolka uu exercise ama jimicsi sameeyo dareema calaamadaha aan kor kusoo xusnay, waxa u baahan yahay inuu xaaladiisa caafimaad eego, gaar ahaan haddii uu yahay qof sameeya jimicsi awood badan u baahan ama waqti badan lagu jirayo. Inshallah xasuusno waxyaabaha keena in qofku koomo galo waxaa ka mid ah sonkorta dhacda, gaar ahaan qofka hadduu macaan qabay. Yacni qodobkan waxaa soo hoosgelaya qofka haddii uu masalan sonkor qabo oo sonkortiisii dhacdo, waxaa dhici karta inuu koomo galo kadibna sidaas uu ku suuxo. Inshallah mawduuceeni maanta halkaas buu ku egyahay. Waa inoo muuqaalada dambe ee soo socda. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka ama aad ka faa'iiday, la sii sheer garee bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.